waxaan u aragnaa in arrintaas inaan dalkeeda u dan ahayn oo magaranaysaa maanta qabiilku xoog yihiin oo jibadadii dhacay imika afar iyo 27 jibad ayaa maka dacwooye lama hubicin doorashadii baarlamaanka iyo deegaanka khalkhal baa darigeliya laakiin waxaa ka horeeya arrinta imika u taala wadada madaxweynaha way u taalaa qarandigiisa saxay in kale waan arki doonaa laakiin waxay u taalaa baarlamaanka cusub ee imika insha allahu tacaala waxaana ka horeysa tii madaxweynaha marka arrintan ayaa madaxweynaha cusub insha allahu tacaala ah iyo baarlamaanka cusub ee u taalaa inay hirgeli doonto in kale aniga shaksaan iyo xisbaan waxaan u aragnaa inay tahay in guuldaro dalka la gelinayo maalintii hore waxaan idhi labada sanood ee farmaajo korsaday iyo xeerkaa Soomaaliya labaduba waa laba guuldarada kuwa khalka dalka ka keenaya tallaabadan guuldaro ayaad ku tilmaamtay xisbigeena in muddo ah ayuu soo jiray wuxuuna ku egyahay dhamaadka sanadka soo socda marka maxaad ku diidaysaan in la sameeyo ururo cusub dalka dinta ka horeysa October kuma wuxuu ku eegyahay 12 December 2022 ayuu ku eegyahay 10 sano haysama oo ah shahaadad waxa anagu shahaadada waa 10 sano waa la 20 bisha December ee nooga dhamaanaysa madaxweynaha ka soo horeysa oo ah bisha November 20 anagu xusbi aan ka baqanayno labada jeer hore wax soo baxnay xusbi marka xilliga istaageeyay laakiin anagu dalkan eegna dalka dintiisan eegna in dalka dadana asxaab ala sameeyaa hadana maanta in asxaabta la koriyo weey marka arrinta wax u taalaa dacwadaha baarlamaanka cusub ee u taalaa insha Allah taala ayaa ka fogaan doona dacwadaha marka waxaan ku fogaanahay sidii shaqada loo sameeyo lahaa iyo sidii magaranaysa arrinta Soomaaliya looga midoob lahaa oo ka faa'iideysan momentum culture adduunka noo soo jeestay in xoogii meeyno oo aan magaranaysa doona ikhtilaafka adduunka ku lahayn taasaan ka noo muhiim in dalku istiqaamad ka xilcin karo maayo iyo hadda doorasho galay hadana doorasho kala galo hadana si madaxweynaha galo hadana waxa weeyaan waxa ka muuqata in dalku madaxa doorasho ka qaadi goor la shaqeeyo la helin xeerkan uu maanta ansixiyay golaha gurtidu haddii baarlamaankuna meel mariyo maxaa dhacaya baarlamaanka ayaa awood leh marka dalka damay madaxweynaha waxaa laga doodayaa hadda jirta guurtidan wuxuu kan soo jeestay arrinteedii la taagan arrinta guurta ay la taagan wax oo dhan waa dan baa laga leeyahay dan qaran laga male dan shakhsi iyo dan guud baa laga leeyahay dan qaran laga male marka guurtan soo jeed waxaan qortaa hadda iyo teedii laga sheegay doonay marka aan dastuur ka fadhiisano guurta ayay laga taliyo laga tashado ayay marka baarlamaanka hore waxa baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday guurta aan sharci ahayn uma arkaba in waxaan sharci loo qaadan sharci loo qaadan haddii marka baarlamaanku uu meel mariyo sharcigan madaxweynahuna uu saxiixo maxay tahay waxyaabaha aad ka filaysaan وقف سوماليلاند وعند سوماليلاند والأخي بونتا لا ما تصير إذا أقرأنا يسوع وضع إذا أقرأنا يسوع ما تشوف هنا والله فرنيا ما هو بس هذا الجمع أنت أي بدون يوم فلين يعني الدم ومريض الدم كرم مفلين برا ما تصيب ما يسمع إن شاء الله تعالى